الحمد لله رب العالمين بسم الله بينو كبلاوينا كنا بلاوني دورشada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta oo ay tahay 1 November 2021 si rasmi ah inoogu bilowday ku bilaabantay labada kursi ee 239 oo aan ku tirtamaynay aniga iyo xildhibaan biixi iimaanna kursiga labaad waxaan leeyahay guulba inoo bilaabantay inaynu maanta furno furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa ilaahay idamkiisa inay hadday Soomaaliland ahaan waa noo bilaabantay maanta waanu noo wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobolada qoy ay soo gabagaboobaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dawlad goboleedyada kale iyo sidoo kale Banaadir oo gobolka Banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeeynaa amaanayana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Somaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kaahiya Akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan hadii Ilaahay idamkiisa oo idmo waxaan aad u bogaadinayaa amaanayana doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyay hadaan nahay xildhibaanada Somaliland u tartamaya iyo bahda Somaliland guud ahaanba in doorashadu qabsanto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtana gacan weyn ka gaaristay had iyo jeerna kala shaqeeyo guddiga doorashada Somaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Somaliland waxaan leeyahay hambalyo guulba inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idin sheegayaa inta aanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku xigeenka waxaan ka shaqeyn jiray doorashooyinka wadamo fara badan aan u tagay goob jooga ahaan 17 sanadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqeynay doorashadu waa tubta kaliya ee lagu kala nabad gali karayo waa tubta kaliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeenu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhamaato ugu dambeyn dhamaanteenba bishan December ee nagu soo fool leh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayana ergadii iyo codaysay aniga walaalkay biixiba noo codaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed waa u adeegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada Som TV Soomaaliya fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid